Airport-kii ugu weynaa ee gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya ayaa dhismihiisu waxa uu imika ka socdaa magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Airport-kan oo markii hore ay dhismihiisa bilowday hay'adda ICRC ee ah hay'adda caalamiga ayaa hakad ku yimid kadib markii ay sheegtay in uu go'ay qarashkii loogu talagalay taasoo ay hakisay dhismaha airport-ka. Dhamaadkii sanadkaynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii dadka ku nool magaalada Cabudwaaq ay sameeyeen barnaamij ugu ballaarnaa kaasoo ka dhacay halka uu ka socdo dhismaha airport-ka kaasoo ujeedkiisu ahaa sidii ay bulshada reer Cabudwaaq gacan uga geysan lahayd dhamaystirka airport-ka. waxaana halkaasi looga dhawaaqay guddi ka kooban 22 xubnood kaasoo la wareegay gacan ku haynta iyo dhamaystirka airport-ka. bilowgii sanadkan ayay ahayd markii guddigii loo xilsaaray dhamaystirka iyo dhisidda airport-ka hawshooda ay bilaabeen waxaana ay lacag ka aruuriyeen dhammaan bulshada ku nool degmada Cabudwaaq kuwaasoo qof kasta wixii uu awoodo uu ku darsaday kana qayb qaadanayay dhismaha airport-ka. guddiga ayaa sidoo kale baaq iyo qeyladaan u diray jaaliyada dibadda ee deegaanada waqooyiga Galgaduud kuwaasoo ay kaga codsadeen inay ka qayb qaataan airport-ka ugu weyn ee laga hirgelinayo magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. ilaahay waa mahad iskale asaga u sugnaatay Allahna abuurtay waxaan mahad labaad u celinayaa dadka ka qayb qaatay airport-ka oo ku nool dibadda ku nool dhamaantood waan u mahad celinaynaa hadday yihiin gabdho oo aan ognahay waliba gabdhuhu kaalinta koobaad inay ayagu galeen iyo dhammaan wax alla wixii ka qayb qaatay arintaas waxa weeye aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa. waxaan kale u sheegaynaa airport-kii inuu meel aan caadi ahayn hadda uu marahayo oo xasaasiya uu marahayo gabagabana uu ku dhow yahay dhaqaalihiina uu gabaabsi yahay oo wax dhaqaalaha hadda anagu gacanta aan ku haynaa aysan jirinin. awalba markii hore ayaga aysan soo xil saaray ilaahay baa ka ajar siinahaya annaguna waa u mahad celinaynaa. taariikhdana baal dahaba ayay kaga qormahayaan. waxaanu mar labaad ka rabnaa sidii ay isu xil saareen oo wanaagsanayd oo hawshaas ay uga qayb qaateen mar labaad inay u laba jibaaraan oo mar labaad ay ka qayb qaataan waxa ay hawsha u qabanayaan waxa way waa deegaankoodii iyo dadkoodii iyo ayaga naftoodii weeye. waxaanu leenahay walaalayaal mar labaad hawshaas inaad ku noqotaan oo sida ugu dhaqso badan waxa weeye aad noo soo gaarsiisaan. meeshaan qalab baa jooga waa qalab haddii alla ku rooyahay muddo badan meeshaan joogay oo muddada uu joogaa dhowr bilood ay gaarto waxa weeye haddana meelo badan iyo cadaadis badan iyo waxbaa iska jira. qalabkiina meesha wuu ku daalay muddo badanna meesha wuu nala joogay. waxaanu ka codsanaynaa si waqtiga gabagabada aan uga faa'iidaysano inaad dhaqaalihii mar labaad dib ugu noqotaan sida ugu degdeg badanna aad noogu soo jawaab 16 May ee sanadkan ayay ahayd markii diyaaradda ay leedahay Juba Airways ay ka soo degtay garoonka cusub ee hadda dhismihiisu ka socdo magaalada Cabudwaaq taasi oo qaaday wusdigii uu horkacay ugaaska beesha Sadabari ugaas Axmed Barre Cali Taakoy ee ka qayb galay shirka lagu ansixinayo dastuurka uu yeelanayo dalka Soomaaliya isla markaana waxa ay sheegeen in waxtar uu leeyahay garoonkani haddii uu ka hirgalo gobolada dhexe dalka Soomaaliya dadka ku nool. airport-ka oo dhererkiisu yahay 2 kiiloomitir ayaa haddii dhammaystiro noqonaya airport-ka ugu weyn ee laga dhisayo gobolada dhexe dalka Soomaaliya. magaalada Cabudwaaq oo imika uu ka socdo dhismaha airport-ka ayaa waxa sanadihii u dambeeyay ka socday horumar laga gaaray dhinacyo badan sida waxbarashada caafimaadka waxaana 3 sano ee u dambeysay ay ka talinayeen maamulka Ahlusunna wal Jamaaca magaaladu ay noqotay meesha ugu nabdoon ee gobolada dhexe dalka Soomaaliya isla markaana waxa laga hirgeliyay dhismooyin aad u waaweyn iyo kuwo qurux badan oo soo jiidanaya bilicda indhaha dadka. isku soo wada duub oo dhamaystirka airport-kan ayaa ah mid ay sugayaan bulshada ku nool waqooyiga gobolka Galgaduud. Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga Royal 24 waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Cabudwaaq.